بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. إلهي وحول لي أهم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. أدونكو ومال امتحان ويه ومال ابتلاء ويه وتمحيص والو امتحامايا dadka lagu kala saaraya hadda faraxsan tahay hadda wax kala kugu dhacayo hadii sanadkan aad gudubto sanad kale waxba ku haysto mar kastaba qof kastaba imtixaan ba haysto qof kastaba imtixaan gooni ah ba haysto imtixaanada se uga gudubna Allah subhanahu wa ta'ala waxyaalo badan buu nagu imtixaamaya ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وحان نقوم امتحامنا أبو الله سبحانه وتعالى بشيء من الخوف وحكمت أهبالير ما أها عبسي دورن إن نقوم امتحامايو لكن وحان نقوم امتحامايا شيء كمد عبسي دا أمن دره والجوع يقاجه ونقص من الأموال يحوله حوغا نقصامه والثمرات يباره يمره عنه وحاوي في جوانب الحياة نولوش الدنيا دوران مال كستر امتحان باكر لعكره امتحان كاس تبغنبو قصر عيال سبحانه وتعالى وحولي أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم موحد لين إنسان إنا جنة جلسان أو إذكو أصن إذين إيمان مثل الذين خلوا من قبلكم dadkii hore wixii ku dhacay oo kale idinkoo isan idigu dhicin miyaa jannada iska galeysaan waa maya imtixaan badan baa jiro suurada sabab nuzuulkeeda culimadu waxay yiraahdeen ghazwatul ahzab qaarna waxay yiraahdeen ghazwaadkii kale weeye oo Allah subhanahu wa ta'ala markii dagaalkii uu dhacay oo saxaabadii ay waxa weeye dagaalameen ba aad loo imtixaamay wazulzilu wala ligligay weeye waayo xaaladii ay ku jireen ba xaala cabsi noqotay oo qof kastaba waa baqay imtixaankaas oo kale iyo imtixaanka adiga ku haysto shakhsi ah iyo imtixaanka waxa way bulshada haysto iyo imtixaanka dawladda haysto waa shucuub iyo ummadda dhamaanba islaamka ah imtixaanadaas oo dhan Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu eegayaa yaa mu'min sax ah yaa ku sabraayo mu'min ma tahay waa lagu imtixaami waayo aakhira ayaa ku sugayso aakhiraduna waa abaalmarin imma jannatun aw naar marka si loo kala garto yaa janno galayo yaa naar galayo yaa jannada gudaheeda darajaadka ugu sareeya leh yaa darajaadka hoose leh imtixaan baa loo baahan yahay waa la is imtixaami adduunka la isku imtixaami ha u malayn jannada in la iska galayo jannadu ala inna sil'ata allahi ghaliya sil'ada Allah subhanahu wa ta'ala jannada ah waa qaali waayo jannada sidoo kale xuffat bil makaari waxa lagu hareereeyay waxyaabaha nafta ee nacab tahay walaalayaal imtixaanku ku haysta waa sax caafimaadka laga yaabaa in imtixaankaadu ka haysto qof kale waxa lagu imtixaamay waxa way faqri iyo xol la'aan qof kale waxa lagu imtixaamay waxyaabo kale in la sabra loo baahan yahay nabiga sallallahu rabbi wa salaamu alayhi wuxuu leeyahay ashaddu an-nas ibtilaa'an al-anbiya ثم الأمثل فالأمثل حديثك صحيح تدك أغدرا حق امتحانك وآد الله امتحامه وأنبياء كذب من النبي صلى الله عليه وسلم ثم الأمثل فالأمثل سأقل هريان صالحين تدك ونكسن أيجا امتحام كوضا أما امتحانك الامتحام أيو وزيادة ويه امتحان كاسي أنبياء مكة اكتو آدم عليه السلام والامتحامي nuux alayhi salaam cunugiisi uu dhalay ayaa wuxuu yiri waxaan ka korayaa buurta asagoo u jeedo ayuu waxa la hafiyay sidoo kale Muusa alayhi salaam Muusa waxa ka horeeyay Ibrahim alayhi salaam qaalu harriquhu wansuru alihatakum waxa warguba ninkan in dhibay gudba loo qoday markaas dab intii waxa la holciyay ayaa la yiri ku tuura Ibrahim alayhi salaam ilaahay baa amri wuxuu yiri xaaskadii cunugan hadda dhashay oo murjuqa ah geey oo saxarada Makka uga soo tag qofna ma joogo biyo ma laha beero ma laha xagga uga soo tag bay iska tag markaas ilaahay bariyay rabbana
إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة وأدعي إله صلاة دها أوغان إله وحا وددك قلوب ددك حق آدي إله وحا أد أدعي لكن والا امتحامي عنقا مكوين إسماعيل وحالي قورع إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى بوغو جوابي معناه وحوي والله ليال امتحان أنبيض أيو قبصدي موسى عليه السلام ما ننتو لشيء إلى وكلمنا امتحان بكجره مع ذلك وأنبياء الله سبحانه وتعالى وجعل أولو العزم من الرسل أيو كمديهي والامتحان ووحينا إلى أم موسى أن ارضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني وحوي بضع موبيغا أيا أسوغو ير لغوريدي فرعون هوسيس كسو كوري وحيالا بدان أيا دعي عيسى عليه السلام سيدو كله نبينا محمد صلوات ربي والسلام عليه امتحاننا صوتن با أقلمي انت إنك بدان أيا لغو سميي كورا ليال امتحانك وحال إيغا إنا كصبرين إنكالي أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم وحد لين إنسان جنة إنا سجري دونتان إذن تابا مثل الذين خلوا من قبلكم oo san idigu imaan dadkii idigu horeeyay wixii taabtay ama wixii ku dhacay oo kale ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun dadku ma waxay moodaan in la iska daynayo inay yiraahdaan waanu rumaynay ayagoo la fidnaynayo la imtixaamin waa la imtixaami oo meel kasta naga imtixaami laakiin waxa guuleystay kuwa sabra ya ayuha alladhina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu sabra oo sabirka ku dadaal waxaan ogaataa haddii adiga lagu imtixaamay dadka kale ha eegin hebel maxaa lagu imtixaamay imtixaanku lagama wado ilaahay inuu ka jecel yahay adiga uusan ku jecleen bal ilaahay waa ku jecel yahay oo aad buu ku jecel yahay subhanahu wa ta'ala waxa lagu imtixaamay waxa weeye ilaahay subhanahu wa ta'ala waa ku jecel yahay hadiis kale wuxuu ahaa nabi sallallahu alayhi wasallam alayhi addoonkiisu uu imtixaamayo ilaa uu ka baxo adduunyada asagoo wax dambi aan lahayn al-ibtilaa dhowr nooc buu ahaada ima lirafci darajat darajooyinka kor in loo qaado ama litakfiiri sayi'aadka qofka waxa waaye in laga rido dunuubtiisa laga rido ama ibtilaagana wuxuu imaan karaa cuquubana waxa waaye waa ku dhici kartaa ama waxa imaanka oo ibtilaag wuxuu imaan karaa in uu ku xasuusiyo al-muncim allaha nicmooyinka ku siiyey inuu ku xasuusiyo intaba waxaan u baahannahay inaan kaashano sabirka inaan kaashano ilaahayna subxaana watacaala aan barino ilaahay subxana wataala tawfiiqda hana waafajiyo dalkana alle subxaana watacaala hanoo dejiyo ubadkana alle subxaana watacaala hanoo hagaajiyo xaasaska iyo dhallinyaradana iyo dhammaan alle subxaana watacaala ha hagaajiyo annagana dhammaanteen ilaahay hanaga dhigo ummad muslim ah oo wanaagsan oo khayrka iyo wanaaga ka shaqaysa alle subxana watacaala hanaga dhigo baaraka allahu fiikum wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh